السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواذا قيبتي أفراد فرين. maanta waxaan ka hadlaynaa mid ka mid ah shirkadaha gawaarida sameeya kuwa ugu waaweyn uguna caansan waa shirkadda Toyota oo ka mid ah sababaha Japan ka dhigay muddo aad u dheer dhaqaalaha labadii caalamka oo dhan ugu xoogan. waa arrin weyn in dawlad ka mid noqoto 10ka ugu horeeya caalamka dhaqaale ahaan. maxaad u malayn marka noqoshada dawladda labaad iyo in aad u dhaxayso saddexaad iyo labaad aadna ka soo degin labadaas? inkastoo Shiinuhu ku jira kaalinta labaad xilligan, laakiin kaalinta saddexaad ee Japan waxay ka dhigan tahay in Japanku ka horeeyo Jarmalka, Ingiriiska, Faransiiska, Kanada iyo wadamo dhaqaalahoodu xoogan yahay. arrin sahlan ma ahan in dhaqaalahaadu ku xoogan yahay wadamadaas lagu tilmaamo wadamo warshado leh wax soo saaro. inta aanan gelin faahfaahin dheeraad ah, ku soo dhawaada warbixin kooban oo ku saabsan shirkadda Toyota. shirkadda Toyota ee gawaarida samaysa waa shirkad laga leeyahay waddanka Japan, xarunteeda weyn waxay ku yaalaa waddankaas. Toyota waa shirkadda ugu weyn ee gawaarida samaysa maanta caalamka oo dhan, taasoo ka dhigan inay ku jirto kaalinta koobaad kana horeyso shirkadaha waaweyn ee Mareykanka iyo Jarmalka sida BMW, Mercedes-Benz, Ford iyo General Motors. Toyota shirkado kale oo gawaarida sameeya ayay leedahay si dhammaystiran iyo kuwa ay saamiye badan ku leedahay sida Lexus, Scion, Hino. sidoo kale qayb libax ayay ku leedahay Daihatsu, Isuzu iyo Yamaha. shirkaddu waxay leedahay 522 xarun daafaha dunida. waxay samaysaa shirkaddu gawaarida kala duwan sida gawaarida raaxada, kuwa xamuulka. xilliyadii u dambeeyay waxay Toyota sidoo kale muhiimad weyn siisay samaynta robotka insaanka loo ekaysiiyey. Toyota waxaa la aasaasay ka shirkad ahaan 1890kii, waxayna ahayd markii hore shirkad yar oo tolidda dharka ka shaqayso. magaca shirkadda wuxuu ka imaaday aasaasihii Sakishi Toyota. markii hore magaceedu wuxuu ahaa Toyota, xarafka da'da booska ta'da, laakiin dhawaq ahaan waxaa fudud Toyota, sidaas ayaana looga dhigay Toyota beddelka Toyota. inkastoo Sakishi Toyota uu dadaal iyo horumar weyn gaarsiiyey shirkadiisa tolidda iyo samaynta dharka, laakiin 1910kii ayuu iska casilay markii dhaqaale xumo soo wajahday shirkadiisa una adkaysan waayay lacagta ku baxaysa baaritaanada horumarineed ee qalabka tolidda. wuxuuna u kici timay Mareykanka si uu fikrad guud uga soo qaato horumarka aaladaha iyo samaynta qalabka kala duwan. wuxuu aad ula yaabay horumarka makiinadaha iyo gawaarida iyo qalabka kala duwan ee wax dhaqaajiya ee Mareykanku xilligaas caanka ku ahaa. haddii aan u soo laabano falaqaynta intaas kadib, shirkadda intaas leeg qiimahaas dhaqaale iyo tayadaas leh waxay ku bilaabatay bilow aad u yar tolidda dharka, taasoo ka dhigan in ayna muhiim ahayn qaabka aad wax ku bilowdo ee muhiim tahay bilaabidda in aad dhaqaaqda marka hore. tallaabooyinku waa sidii silsilad, ayaga ayaana isfurfura. muhiimaddu waa howlgalka ugu horeeya. waxaa la sheegaa waana arrin xaqiiqi oo dhacday in unkidda Toyota uu ka imaaday baarinimo waalid. sida la sheegay, hooyada Sakishi Toyota oo ah aasaasaha shirkadda waxay ka shaqayn jirtay tolidda dharka si gacmo ah, inay gacmaheeda ku samayn jirtay arrinkaas oo daal u keeni jiray, taasoo keentay in wiilkeeda Sakishi Toyota uu u fikiro wax hooyadii ka kaalmayn karo qabashada howlaheeda si fudud. wuxuuna u sameeyey aalad alwaax ka samaysan oo dharka tasho, kadibna shirkad magaciisa huwan ayuu u bedelay. 1910kii shirkadda Toyota waxaa soo wajahay dhaqaale xumo. arrin muhiima, haddii aad rabto inaad ku horumarto waxa aad ka shaqayso, waxaa laga maarmaan ah in aad samayso baaritaano badan adigoo hanti iyo waqtiba u horaya arrinkaas iyo maskaxba, si aad ula jaanqaado ulana tartanto loolanka suuqa ka taagan. inta badan waxa shirkadaha waaweyn ee aan naqaan ay ku horumareen waa baaritaanada cilmiyeed ee joogtada ah. shirkadaha sida Google waxay leeyihiin dad shaqadoodu kaliya tahay in ay fikrad keenaan, xitaa haddii ay u muuqato fikrad aanan soconaynin. shaqadaada imaw subaxdii, kadibna koobkaada shaaha qaado, miiskaas iska fariisa, afkaar keen, wax iska sawir. shirkad kastana waxay leedahay qayb lagu magacaabo qaybta tijaabinta cilmi baarista, haddii kale halkooda ma dhaafayaan. maadaama Sakishi Toyota uu awoodi waayay dhaqaale ahaan cilmi baarista shirkadiisu u baahan tahay, wuxuu go'aansaday inuu iska casilo, kadibna wuxuu u safray waddanka Mareykanka oo xilligaas xawli uga socdeen howlaha aaladaha iyo qalabka kala duwan. Sakishi
markii uu Maraykanka imaaday waxaa soo jiitay samaynta gawaarida. fikrad guud markii uu Maraykanka ka qaatay sida ay wax u socdaan, dib ayuu ugu laabtay waddanka Japan. halkan waxaad ka akhrisan kartaa farqiga u dhexeeya in qurbaha qofku uu imaado inuu iskaga noolaado, iska joogo, iyo in uu imaado in uu fikrad ka qaato kana barto waxa ay ku hormareen. ka waran malaayiinta Soomaalida ee qurbaha joogto, 10 qof kaliya haddii ay keenaan samaynta wax cusub. Sakishi Toyoda markii uu Japan ku soo laabtay, waxaan sheegay inuu Maraykanka u kicitimay fikrad guudna uu ka soo qaatay. wuxuu go'aansaday in uu shirkadiisa boorka ka jafo oo waliba tolida dharka halkeedii ka sii wado, siina hormariyo. waataan soo sheegnay inuu u baahnaa lacag uu baaritaanna ku sameeyo iyo horumarinta. haddaba nin lagu magacaabo Ishizu Kodama oo ay saaxiibo ahaayeen, madaxna ka ahaa warshad ay leedahay Mitsubishi, ayaa ka saaciday maalgelinta u baahnaa. 1920kii wiil uu dhalay Sakishi Toyoda oo lagu magacaabo Kishiro Toyoda kaalin weynna ku yeelan doono howlaha aabihiis. wiilkaas wuxuu ka qalin jabiyey jaamacadda, wuxuuna ku biiray shirkadda aabihiis. kadib 4 sano taariikhdaas, waxaa u suurta gashay Sakishi Toyoda in uu hormariyo sameeyana matoorkii Japan ee ugu horreeyay samaynta ama dhaqaajinta aaladaha dharka tolo. ma ahan dhinaca gawaarida, waa makiinad matoor ku shaqayso oo dharka samaysa si automatic ah. laga soo bilaabo waqtigaas, Sakishi wuxuu noqday nin qiimo weyn ku dhexleh mujtamaca Japan, waxaana dhinac kasta uga imaaday abaalmarinada iyo biladaha kala duwan Japan iyo dibadda Japanba. 1929kii Sakishi Toyoda wuxuu haystay lacag macquul ah kuna filan in uu howlo kale ku sii fuliyo, taasoo keentay in wiilkiisa Kishiro Toyoda uu ka dalbaday aabihii in uu sameeyo baaritaano samaynta gawaarida. wuxuuna wiilka sida aabihiisoo kale u safray Maraykanka, laakiin sidoo kale wuxuu soo maray Yurub. waa wiilka uu dhalay Sakishi Toyoda ee Kishiro Toyoda. laakiin 1930kii waxaa geeriyooday Sakishi Toyoda. weli ilaa hadda lama soo saarin wax gaari shirkadda Toyota may soo saarin. markuu geeriyooday, laakiin wuxuu ka tagay wiilkiisa oo ka dhaxlay howlkarnimada iyo jacaylka waxqabadka. wuxuuna ku howlgalayay wiilka Kishiro dardaaran uu aabihii siiyey inta uu dhimanin oo ahaa ka qayb qaadashadayda horumarinta Japan waxay ahayd samaynta makiinada tolitaanka. waxaan kaa rabaa adigana inaad uga qayb qaadato horumarinta Japan samaynta gawaarida. kadib geerida Sakishi Toyoda, waxaa hawsha halkeedii ka sii waday wiilkiisa Kishiro Toyoda. hadafkiisana wuxuu ahaa samaynta gawaari si 100% loogu sameeyo Japan, gawaari sicir macquul ah lagu gadan karo. wuxuuna bilaabay howlaha baaritaanada matoorada. 1933 shirkadda Toyota markii ugu horreysay waxay furatay qayb gawaari, maadaama wax khibrad ah uusan u lahayn samaynta gawaarida. wuxuu soo gatay gaari Chevrolet Maraykan ah, kadibna boolbool ayuu u kala furay si bir kasta gooni loogu sameeyo. heer gawaaridii ugu horreeyay ee shirkadda Toyota soo saarta ay u ekaayeen gawaarida Chevrolet. waa mabda ah, waan ku raaci qaabkaad wax u samaynayso, kadibna markaan kaa fahmo aniga ayaa u samaysanaya qaabka aan rabo. laakiin maanta Toyota way ka hormarsan tahay Chevrolet. heer shirkadaas Maraykanka injineero ay u dirta Japan si ay uga soo faa'iidaan waxna uga soo bartaan shirkadda Toyota. 1937 magaca shirkadda waxaa loo bedelay Toyota. bedelka Toyota waxaa la dhihi jiray marka hore Toyota. intii uu socday dagaalka labaad ee adduunka, gaar ahaan 1940kii, Toyota waxay ciidanka Japan u soo saari jirtay gawaari xamuul ah oo ciidanka qaado. bilowgaas shirkadda Toyota aadka u tabarta daran ee ka bilowday guri wiil iyo hooyadii, maanta waa imbaradoriyadaas caalamka ugu horeyso samaynta gawaarida. Land Cruiser, Camry, Corolla, gawaaridaas kala duwan ee farada badan ayay samaysaa Toyota. 1960kii Toyota waxay bilowday baaritaano cilmiyeed aad u baaxad weyn, waxayna dhistay dhismo loogu talagalay kaliya baaritaanada, waxayna sii baahisay warshadaheeda. xilligaas Toyota waa 1960kii waxay u dabaaldegaysay samaynta gaarigii 1 milyan iyo 10 gaari ayay maraysay gawaarida ay samaysay. bilowgii 60meeyadii gawaarida Toyota waxay galeen suuqa Yurub, waxaana lagu soo bandhigay suuqyada Denmark. isla sanadkaas
dhismo weyn ayay Toyota ka furatay Australia waana dhismihii ugu horreeyay ee ka baxsan xuduudka Japan 66 Toyota waxay u ahayd sanad taariikhi ah waa markii ay soo saartay gawaarida ama gaariga Corolla oo dhigay rikoor number qiyaasi ah dhanka iibsashada caalamka oo dhan malaayiin qaybood ayay shirkadu sii iibisay oo gaarigaas ah